Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha. Qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah kooxda Aston Villa oo xasuuqday kooxda Everton. Xulka qaranka Spain oo ku guuleystay koobka adduunka oo ay ku garaaceen xulka qaranka England. Taageerayaasha Manchester United oo durba dalbaday in shaqada laga eriyo tababare Erik ten Hag. Barnaamijka ayaad ku daawan doontaan. Qodobada kale ee barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Liverpool oo laga yaabo inay racfaan ka qaadato casaankii la siiyey xidigeeda. Arsenal oo diiday dalab laga soo gudbiyey xidiga khadka dhexe uga ciyaara. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka. Fadlan haddaad ku cusub tahay, like inoo saar, subscribe dhasiina shargaraysi barnaamijkeena asxaabo badan u gaaro. Mahadsanidina. Kooxda Aston Villa ayaa waxay xasuuqday kooxda Everton kulan ka tirsan horyaalka Ingiriiska Premier League. Kooxda Aston Villa ayaa 4-0 waxay ku garaacday kooxda Everton kulan ka tirsan horyaalka Ingiriiska Premier League. Kooxda Unai Emery ayaa qaab ciyaareed aad u fiican ku jirta tan ilaa muddadii la ciyaaray horyaalka Ingiriiska Premier League. Xulka qaranka Spain ayaa ku guuleystay koobka adduunka ee haweenka kadib markii ay 1-0 ay kaga badiyeen xulka qaranka haweenka England oo kulan si adag loogu dagaalamay go'aamiyay gool ay dhalisay xidigta shafka ku qoratay fariinta Kamona. Ciyaartan oo si weyn loo sugayay ayaa warbaahinta Ingiriiska ay aad u buunbuuninayeen ayaa waxaa qaybtii hore goolka keliya xulka qaranka Spain u dhaliyay xidigada lagu magacaabo Kamona oo darbad xoogan oo lugta bidix ahayd shabaqa ku hubsatay. England ayaa bilowgii qaybtii hore nasiibku diiday oo birta ku garaacday darbad xoogan oo ay xirada ganaxa horteeda ka toogatay Lauren May, halka dhamaadka qaybtii hore ay sidoo kale birta diiday oo kubad ay tuurtay Salma ay birta kaga dhacday. Xulka qaranka Spain ayaa sidaas ugu guuleystay koobka adduunka, halka rajadii England ay ahayd in ay soo afjaraan dhibaatada ka haysata koobka adduunka ay weli sii socoto. Manchester United ayaa guuldaro kala kulantay kooxda Tottenham kulankii labaad ee xilli ciyaareedka horyaalka Ingiriiska Premier League. Manchester United ayaa lagu garaacay 2-0 kulan ka tirsan horyaalka Ingiriiska Premier League iyadoo dusha loo saaray guuldaradii ugu horeysay xilli ciyaareedkan. Kadib markii ay ciyaarta soo dhamaatay, durba taageerayaasha Manchester United ayaa ka soo horjeestay tababare Erik ten Hag iyagoo dalbaday in shaqada laga eriyo. United ayaa suuqa gelisay lacag aad u badan tan ilaa markii Erik ten Hag u yimid kooxda, laakiin Red Devils ayaa weli ku dhibaatoonaysa inay badiso kulamada kooxaha waaweyn. Qaar ka mid ah taageerayaasha Manchester United ayaa doonaya in shaqada laga eriyo Erik ten Hag kadib markii natiijo xumo uu kala soo laabtay kulankii kooxda Tottenham. Liverpool ayaa laga yaabaa in ay racfaan ka qaadato casaankii la siiyey Alexis Magalhaes kulankii ay 3-1 ay kaga badiyeen kooxda Bournemouth Sabtidii. Kooxda Klopp ayaa gaartay guushii ugu horeysay xilli ciyaareedkan horyaalka Ingiriiska Premier League kadib goolal ay kala dhaliyeen Luis Diaz, Mohamed Salah iyo Diego Jota. Si kastaba ha ahaatee, 3 dhibcood ayaa waxaa xoogaa hareeyay kaarkii casaanka ee loo taagay xidiga Magalhaes kaasi oo ciyaarta laga saaray daqiiqadii 58 kadib markii uu qalad ku galay xidiga kooxda Bournemouth ee Ryan. Kooxda Arsenal ayaa diiday dalab laga soo gudbiyey saxiixa xidiga khadka dhexe waxayna soo dalbatay kooxda reer Sacuudiga ee Al Nassr sida ay wararka ay sheegayaan. Kooxda ka ciyaarta Sacuudi Carabiya ayaa doonaysa xidiga reer Ghana si ay ugu xoojiyaan khadkooda dhexe. Si kastaba ha ahaatee, kooxda Arsenal ayaa u muuqata kuwo aan diyaar u ahayn inay iibiyaan xidiga khadka dhexe. Kooxda Arsenal oo qaybtii dambe xilli ciyaareedkii la soo dhaafay uu fashilmay. Arsenal ayaa bilowgii xagaagan diyaar u ahayd inay iska iibiso xidigan, laakiin haatan waxay aaminsan yihiin in aanay heli doonin beddelkiisa. Kooxda Al Nassr ayaa diyaar u ah in ay bixiso 40 milyan oo euro, laakiin Gunners ayaa diiday dalabka kooxda reer Sacuudi. Guud ahaan waa naga intaa barnaamijka ciyaaraha. Fadlan haddaad ku cusub tahay, like inoo saar, subscribe dhasiina shargaraysi barnaamijkeena asxaabo badan u gaaro. Mahadsanidina.